ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay. waa axad ay taariikhdu ku beegan tahay 22 bisha Maarso sanadka 2020 waa maalinta 28aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 284 cisho. dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii 2010 ciidamada badda ee dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 11 ruux oo burcadbadeed Soomaali ah. maanta oo kale sanadkii 2012 Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland ee xilligaasi ayaa sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in wada hadal ay la gasho Soomaaliya. maanta oo kale sanadkii 1622 koox hubeysan oo ka soo jeeda dalka Hindiya ayaa weeraray deegaan lagu magacaabo James River oo ka tirsan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxaana ay halkaasi ku direen 350 ruux maalin gudaheed. maanta oo kale sanadkii 1630 magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayaa laga soo saaray sharcigii ugu horeeyay ee haweenka muslimiinta dalkaasi ka mamnuucayay inay khamaarka qaataan. maanta oo kale sanadkii 1904 sawirkii ugu horeeyay ee midab leh ayaa lagu daabacay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. maanta oo kale sanadkii 1790 Thomas Jefferson ayaa noqday xogayihii ugu horeeyay ee dalka Mareykanka. maanta oo kale sanadkii 1935 dalka maanta loo yaqaano Iran ayaa laga bedelay magacii Faris oo markii hore la oran jiray. maanta oo kale sanadkii 1832 baarlamaankii dalka Ingiriiska ayaa meel mariyay sharci dib u habeyn loogu sameeyay hanaanka doorashada dalkaasi. maanta oo kale sanadkii 2018 madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Shiinaha ku kordhiyay $60 milyan oo dollar lacagta canshuurta laga qaado. ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii hore ee 2019 madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu iska xidhay ciwaankiisii baraha bulshada kadib markii uu sheegay in qof aan fasax u haysanin uu si khaldan u isticmaalay. guud ahaan dhageystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas.